Soomaaliya waxa joogo aniga shantaay aan la kulmo ku cadayha niman yiri quraanka hadii lagu dhaqmo dadka dham cadaabay galayaan ani hadda muqdisho ku noolahay waxa oday ka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa taliye ka in leeyahay taliye mahad salaad qof kasto muqdisho joogo wuxuu yahay dawladdu way ogtahay dawladuna waxa rabaa marka dulmigana inay iska ilaaliso inay gacan dheeraato marka hadii la yiraahdo kitaabka ilaahay ha lagu xukumo dadka haday dimi naqanayso dimiga ana galay ilaahayna kitaabka wuxuu u soo dajiyay in wadanka lagu maamulo Soomaaliya daawadeeda iyo nabadgelyadeeda iyo masiirkeeda iyo xasiloonideeda iyo heebadeedana waxay ku jirtaa kitaabka ilaahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu xukumo Soomaaliya waxa joogo aniga shantaay aan la kulmo ku cadayha niman yiri quraanka hadii lagu dhaqmo dadka dham cadaabay galayaan ilaahay wuxuu yiri as-saariqu was-saariqatu quraanku kula aqra fiiriya qofka waxa hadii lugi hadii gacan laga jaro oo naafo noqdo midka aan guur soo marin haduu siinaysto oo marqaad isku marqaati furo ama afar marqaati loo helo 100 jeeda lagu dhufto midka guur soo maray hadii la rajmiyo dadku waxay qaayeen saddex qolo naafowda qolo isbitaalka jiifato iyo qolo dhimato ugu dambeyn waxaan ka rabaa hal arin inaad maaragtay si kooban nooga jawaabtid oo dadkuna isweydiinayaan Sheekh Shantaay waxaad ka hartay haddii maaragtay anaga aanan arkin ma sheegi kari arrimihii social media waa ka hartay gaar ahaan TikTok-gi dadkii wali sidii u joogaan laakiin adiga hadafkii maad gaartay macnaha oo aad ka lahayd inaad dadkaasi wax u sheegtid ma xaqiijisay mise waa ku daashay horta maalinkan isbaranayn waa ku cadeeyay horta anigu TikTok mili waa lagu samaystay may dadkaas sheekooyinkoodii waa ka hartay waan TikTok ah oo anigu aan isticmaalo oo barahayga aan u isticmaalo afkaartayda aan ku gudbi malihi anigu page baan leeyahay hawshina waan wadaa shalay ugu dambeysay waxaan furin u dirnay nin leeyahay Idriiska ii taabo hawshii ay ugu taqiinay waan wadaa kama daalin balwada ii tahay soo qof walba balwad ma leh balwadiidu waay qofkii wax anshaxa iyo dhaqanka umada Soomaaliyeed aad odayaasha umadaad ka mid tahay aad garanayso oo aad dhigi karto aleelahay waa qalad cad qofkii umada la hor yimaado ee haweenay ka ajnabi xalwa afka u geliya ay yiraahdo inta baraha bulshada soo hor istaaga dhaho ishumi umadan horgeynayna xaqiiq waay maxay la saa umada isor keenay muusan la dhuman marka ma joojin wali waa wada mana joojinay inta ilaahay kala kulmo account TikTok maxaa u samaysan weysay macnaa maadan aqoonin miyaa sida loo isticmaalo mise may waqti aan u hayn waxa la sheegay TikTok inuu ka duwan yahay page-ka iyo YouTube channel-ka inuu la sheegay marka anigu live ma soo gali karo waqti uma hayo maxaa ilaa afar habeenimo bacda maghrib duruusaan galaa sagaalka 8 iyo barkan xaafada imaada odayaan ahay anigu daalana guriga imaada marka 8 iyo barka wixii ka dambeeyana inaan inta live soo galo aan marka adiga iyo Idriiska ii taabo isku si macnaa meesha ma u dhax fadhin kartaan diyaar u mihi